السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال واد محدثنتين دمان با intii ii codeysay ee suurta gelisay in abaalmarintan la isiyo. Waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa ururka haya ee isagu abaalmarintan i guddoonsiinaya anigoo waliba maqan oo hawl ku maqan hase ahaatee dadkii la shaqeynaya qaarkood baa jooga oo ii qaadi doona. Waan hubaa inay jiraan walaalahay Soomaaliyeed oo iga mudan abaalmarintan hase ahaatee tani waxay ii tahay farxad ballaaran waxayna igu dhiirigelinaysaa inaan halkiisii ka sii wado ololaha hangasha oo aan sanadkan 1 Agost bilaabay kana miro dhaliyo ujeedadii aan wadankayga Soomaaliya iyo dadkayga Soomaaliyeed asayda ugu qaaday. Waxaa iga go'an inaan ku dadaalo sidii dalkayga Soomaaliya nabad loogu soo dabaali lahaa dadkaygana ay darxumada uga bixi lahaayeen. Waxaanahay taageeradiina ololaha hangasha idinka ayaan idin sameeyay idinka ayaa leh waa olole ay leeyihiin inta aan cod ka lahayn waa olole ay leeyihiin inta darxumadu ku daba dheeraatay haddana wax ka naxaya aanay jirin. waxaad tihiin cadiga mid ah waxaad tihiin cad Soomaali ka mid ah. waxaan u baahannahay in la wada hadlo la wada fariisto la wada tashado lagana arrinsado wixii inoo dana dagaalka iyo colaadda miyaa inoo dana mase inaan nabad helno saldhiganno sharaftii iyo qarannimadiina aan dib u soo ceshanno. waa inaan hoos isu eegnaa isku naxariisannaa iskuna kalsoonaannaa. mar kale waa mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ololaha hangasha idinka ayaan idin sameeyay idinka ayaa leh waa olole ay leeyihiin inta aan cod ka lahayn waa olole ay leeyihiin inta darxumadu ku daba dheeraatay haddana wax ka naxaya aanay jirin.